taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Janaraal Sakiyo Xuseen Axmed oo xalay shir jaraad ku qabatay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay hawlgallada ay maalmahanba ka wadeen ciidanka boolisku magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba nawaaxigeeda. Janaraal Sakiyo ayaa sheegtay in hub culus oo isugu jira waxyaabaha qarxa, rasaas, daawooyin iyo kiimika laga sameeyay qarxa ay ku heleen hawlgal ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxay sheegtay in kaliya ku ekeen hawlgalladu gobolka Banaadir oo ay hawlgallo ka fuliyeen ciidanka boolisku degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanada hoostaga. hawlgallada amniga lagu sugayo waxay u socdaan si habsami ah. intay hawlgallada socdeen maalmahan la soo dhaafay waxaa la fashiliyay falal badan oo argagixisada soo maleegeen oo isku jiraan dilal qorsheysan, qaraxyo gawaari loo adeegsan lahaa, weeraro la damacsanaa bartilmaameedyo shacab iyo kuwa dawladeedba. hadda si gaar ah u sii warbixiyo hawlgallada iyo wixii lagu soo qabtay. maanta taariikhdu tahay 6 bisha Afraad 2019 ciidamada ammaanku waxay deegaanka ceelasha biyaha ku soo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa, rasaas, bambooyin, miinooyin, maadooyinka qaraxyada laga sameeyo, hub fudud iyo mid culusba. hubkan aad u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoostiisa ah. waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hubeed ee argagixisada Al-Shabaab ee ka howlgala Muqdisho iyo nawaaxigeeda. howlgallada hadda socda kuma eka kaliya gobolka Banaadir, waxaa maanta ciidamada booliisku howlgallo lagu fuliyay degmada Afgooye lagu soo qabtay 35 eedeysana shabaab ah. sidoo kale deegaanka Sabiib waxaa lagu soo qabtay ilaa 14 qof oo sidoo kale ku eedeysan Al-Shabaabnimo. sidoo kale ciidamadu amniga waxay gacanta ku soo dhigeen mid kamid ah rag argagixisada u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa ee gaadiidka lagu dhijiyo. waxaana hadda lagu hayaa baarista kadibna waxaan soo la tiigsan doonaa sharciga. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo ciidamada la wadaagay xogta ku saabsan hubka iyo dadka la soo qabtaba. waxay tani muujinaysaa wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhaxaysa bulshada weynta iyo hay'adaha amniga. waxaan ognahay in argagixisadu maalmahan dambe xoog saarayaan in waxyaabaha qarxa ay dadka ugu xiraan gaadiidkooda oo gaarka ah. laba falo noocaas ah ayay Khamiistii Jimcihii ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya dad wax galabsanin. saacada kadib ciidamada waxay gacanta ku soo dhigeen si ay idin sheegay rag argagixisada ka tirsan u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa baawurka loogu xira. baaritaan kadibna waxaan hor keeni doonaa sharciga. waxaa bulshada mar labaad iyo mar saddexaad kula talinaynaa inay si gaar ah uga taxadiraan gawaaridooda maadaama argagixisada doonayaan in shacabka iyo dawladda khasaare u geystaan. howlgallada amniga lagu sugayo way sii socon doonaan wayna sii balaaran doonaan. mar kale shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa dulqaadka iyo wada shaqaynta ay muujiyeen. waxaana sidoo kale xusuusinaynaa in wixii macluumaad ah ee la wadaagi karaan iyagoo wacaya nambarka sida gaarka loogu talagalay loogu diyaariyay bulshada ee 991 ama 991. walaalayaal aan ka wada shaqeyno amniga iyo nabadda guudba. askari oo lahayn shacab wuxuu la mid yahay wiil oo waalid lahayn. sidaas darteed waxaan mar labaad ugu bogaadinaynaa uguna baaqaynaa shacabka inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhaxaysa iyaga iyo hay'adaha